السلام عليكم شاليال markaan ka hadlayno garaadka macmalka ah waxaan soo qaadnaa taleefan shaashad cod yar oo robot wax la mid ah yani wali waxa aan leenahay garaadka macmalka ba aadanaha bedeli doona ka hadlayna badana wali wax shaashad ku dhaxbisan way ka war hadaan dhahno garaadka macmalka shaashad wala soo dhex saaray asagoo nool soconay naga soo baxaya gacmo leh lugo leh indho leh maskax leh soconaya waxtaan soo weerari kara tan waxaan ka hadlaynaa wuxuu yahay wax kale ma sheegaya waa robotyada laba kun labaatan iyo afar sanadan dabaaqada ku sii dhow robotyadii ugu caansan ee la soo saaray iyo awoodooda qaabiliyadooda ku aadan la sinaansha aadanaha ama bini aadamka intee in laga gaarsan tahay baan ku bilowna midka ugu soo horeeya waxaan aadan doonaa dhankaas iyo Norway shirkadda loo yaqaan X1 robotkada loo yaqaan Neo badanaa marka aragtaan robotyada ayagu waxa la culus qaadaya meel kala duwan ka shaqeynaya loo design gareeya laakiin shirkaddan Neo waxay ugu talagaleen inuu xitaa qabto shaqooyinka guriga yani qiyaas gurigaad imaanaysaa baradhada soo fiiqaya cunadii karinaya jikada hagaajinaya wax walba ka shaqeynaya yani shaqadii dadka guriga jooga oo qoyska koobna qaybihiisa kala duwanaa shaqadoodii qayb ka mid ah ayuu qabanaya robotkan dhererkiisu 165 cm culayskiisuna wuxuu gaarayaa 30 kg meelaas yani cunug 12 jir camal oo kale ama 10 jir ku dhaw oo kale miisaankiisa oo kale ayuu gaarayaa haddii noqoto socod saacadii wuxuu socon karaa 4 kilomitir yani saacadii hadduu caadi u socdo 4 kilomitir socon karaa hadduu ordayana wuxuu gaari karaa ilaa 12 kilomitir ma dheereeya mise waa gaabiya talo arki doonaa haddii noqoto alaab qaadis wax la midka waxa laga yaabaa isweydiinaysid hadduu guri ka shaqeynayo jawaanka bariiska ma qaadi karaa jawaanka inuu qaadi karin baa filaya laakiin jawaanka halfkiis rubuc jawaan oo 20 kiilo wixii ku ag dhow uu qaadi karaa intee in laga shaqeyn karaa 2 saac ilaa 4 saacna asagoo daalin buu shaqeynayaa dabcan markuu daalana maxaad sameynaysaa xogaa cunna baa siinayna dabcan cunadiisu waa koronto weyn waa la charge kareynaya shirkaddan X1 robotkooda Neo waxay u bixiyeen magac loo yaqaan Eve oo Carabi ama anagu naqaano Hawa ama Hawa loo yaqaano wali robotkan suuqa kuma soo deyn laakiinse marka la fiirqaab u shaqeynayo waxa loo yaqaan neural networks oo bini aadamka anaga maskaxdeena isku xirxiran dad soo kale jidka adoo maraya hadda soo aragtay gaari gududan oo dadka ku dhacaya waxa ka bacdi gaarigu markaa soo horbax waxa xasuusanaysa gaarigan gududna inuu shil sameeyay waad ka cararaysaa xasuusteen way isku xirantay waxaan hore u aragnay macluumaadka dib ka helina waa isku xiri karnaa neural networks kana xasuustaas iyo macluumaadka isku xirnaantooda ay ka shaqeysaa taasna waxa la dhahaa waa mid ka mid ah ku dhisan yani shalay hadduu qaado jawaan culus uu la kufay waxa xasuusan karo jawaanka marka la kufayo yani iska ilaalinaya waana sababtan u leenahay garaadka macmalka oo jir lagu shubay sidaan ay soo bixi karaa robotkan xiga waa shirkadda Frontier Intelligence robotku loo yaqaan GR1 markaan aadna dalkaasi Singapore shirkaddan oo lagu yaqaan inay soo saarto aaladaha caafimaadka iyo rehabilitation-ka tusaale kale qof jug gaartay oo kale xaalad midka hagaajintooda iyo dayactirkooda shirkad caan ku aweeyaan laakiin markaan wixii aan ku naqan wax ka duwan soo saaraysaa oo robot ay soo saartay robotkan ugu magacaabeen GR1 robotkan sidoo kale dhererkiisu wuxuu gaaray ilaa 165 cm yani mitir iyo 65 dherer culayskiisuna waa 55 kilo yani jawan bariis waa ka badan dabcan yani jawan bariis iska soo celinaya laakiin cabirkan ka wada yani 55 kilo waa miisaan xadad dad badan oo caadi ah oo qaangaar ay gaari karaan yani bini aadamka ku awood yahay culays ahaan wuxuu socon karaa 5 kilomitir saacadii culayskiisa culays ku ag dhowna uu qaadi karaa yani tusaale hadduu asoo 55 kilomitir yahay ilaa 50 kilo ilaa 40 kilo culays dhanna uu qaadi karaa oo sidii kii oo kale ma ahan kii hore 20 wax ka badan ma qaad laakiin kan ilaa 55 kilo ayuu qaadi karaa yani wax culus waa loo adeegsan karaa dhanka kale wuxuu leeyahay wax loo yaqaan 12 freestyles oo yani ah robotyada saan aragnay qaarkood saan u soconay ama geesgees u soconay geesgeeska u jeesanayaan asoo laakiin 12 qaab oo kala duwan ayuu qaadi karaa inuu foorarsado alaab qaado dhigo istaago wax laaco wax la mid dabeecado kala duwan yani ashkaal kala duwan ayuu qaabili karaa yani markaan 12 leenahay waxaan ka wadnaa hadda su'aalka anoo ila hadlaya gacmaha maanta isbedel lugaha isbedel madaxa isbedelaya laakiin robotku taas ma keenayo waa sababtan qofka aan xarakad la'aan oo saas u soconayaan dhahna war ma robot baa taas wax ka yihiin oo kale oo niraahno weeyaan saas si lamid ah anaga malaayiin function ilaahay nasiyo subhanahu wa ta'ala oo anaga aan ku baraarugsanayn laakiin se wa fi anfusikum afala tubsirun ka aad oranaysay ilaahay subhanahu wa ta'ala oranayay
يعني haddaan isku tadaburno baan qiimaheena ogaan karnaya iyo khaaliqan awoodiis intay dhan tahay balse waxaanu ka hadlaynaa robot 11 sifo leh bas 11 qaab oo kale wax uu qaadi kara bakaliya yani imagine wali waxay caddeynaysaa taas in hadana waxay soo saareen wax badan u dhiman yihiin kaasna robot GR1 weeyaan oo ay samaysay shirkadda aan soo xusnay ee Singapore dhacda hadda waxa u laabanaa cariga iyo Mareykanka shirkaddan loo yaqaan Figure oo soo saartay robotkooda Figure 1 ba hadda diyaarni laakiin hadda dhawaan waxay soo saareen Figure 2 kan oo dhammaan leh sifooyin kinetics kala duwan yahay oo dynamic oo kala duwan oo waliba loo adeegsan karo caalamka warshadaha yani warshadii hadda waxaan naqaanay bini aadan baa ka shaqeyn jiray waxaan kula arki jirnay in robotyo gacan abas oo gacanta gaariga intay fujiyaan dhigaan si qaadaan ayuu aad u yaala aragtaan ayuu guduud ayuu midabo kala duwan leh dad ku dhaxaragnaa warshadaha ku dhaxaragnaa oo hadda ilaa sanado badan shaqeynayay laakiin kan waa mid bini aadan u eg yani waa humanoid waa robot iyo human isku jira noqonaya oo warshadaha dhan ka shaqeyn kara kuwaas oo hadda shirkado badan loo adeegsado robotkan ayaa dhererkiisu gaaraya ilaa 167 cm kuwii hore wax ka dheer dhererkiisuna oo cabirkiisuna uu gaaray waxaan ka badnayn 60 kiilo oo culayskiisu gaaraya yani culayskiisa aslatigiisu bini aadan dhexdhexaada oo macquul ah miisaankiisu ka dhow yahay asagoo laakiin sidoo uu culus yahay uma awood badna 20 kiilo wax ka badan ma qaadi karo saacadiina ilaa 5 kilomitir ayuu socon karaa yani asagoo dab ka dhexin 5 kilomitir uu dhammaysto awoodiisa oo degdegiisa socod intaas kama badna sidoo kale waxa la cajiibka uu leeyahay robotyada kale kaligood ayagoo si madax banaan ay shaqeyn karaan laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay sidii laba qof oo wada shaqeyn inaad tihiin oo kale tusaale oo kale haddii aad u soo dhawaatid oo gacanta ama lugta soo dhawaysid oo kale waxa la arkayaa soo ka durkay oo kale yani waa mid kula tacaamuli kara xoogaa yar bini aadan dareenkiisa leh oo qiyaasi kara xaaladda marka lagu jiro oo kale su'aal ka hadduu shaqo waday oo kale oo adiga wax ka dhacay inuu kala yaabo inuu ku maxtaarata kula qaado yani tartiib waxa lagu soo shubayaa garaadkii macmalkan ka hadlaynay oo robotka birta soconaya wuxuu u socdaa dhanka bini aadamka inuu ekaanayo sifada loo ekeysiinayo amal oo kale waxa la cajiibka wax kamid sidoo kale shirkadda BMW aan naqaan oo Jarmalka oo gabar soo saarta ayaa sidoo kalena ah shirkadda ugu weyn ee istaraatiijig ahaan ka dambeeya yani musharakooyinkooda istaraatiijiga dadka sheerka ku ah ama maalgelinay shirkadda ugu weyn waxa ka BMW oo wali dabcan saan idin shaqeeysan filanaysa dhawaan in uu adeegsadaan dhammaan warshadahooda wax soo saaraan u adeegsan doonaan dhanka kale shirkadda OpenAI aan ognahay inay soo saartay ChatGPT iyo teknolojiyada badan oo garaadka macmalka ku shaqeysa sidoo kalena heshiis ayaa la galin taas oo fududeynaysa taleefanka meeshii oo qofka codka noo jawaabiyo kale si ka duwan markaan in robotkan hortaagnaa su'aal weydiin karto dhigi karto alaabtan waxa soo qaadi weeday ku dhahayo waan soo ilaaway ama waan soo qaadaya ama haddaan wada ama waa igu culus tahay wax la mid ah yani markaan robotka inta hor istaagtid ayaa la sheekaysanaysaa oo su'aalaad weydiinaysaa ma ahan kii meeshaan intuu wax soo qaado dhigayo kaliya Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. يعني wuxuu dheer yahay in uu markaa asagu hadli karo wax ku weydiin karo wax weydiin kartid waxa badan oo la mid ah soo cajiib ma taw wax gal socda shirkaddan waliba dhanka kale dhanka lacag samayntana wax aanan yarayn heer aan yarayn bay gaareen oo hadda wareegooda ugu horeeyo maalgashiga ilaa 600 milyan oo dollar maalgashi gaaraya ayay gaareen halka qiimeynta shirkadooda lagu qiyaasay 2.1 bilyan dollar wax ka badan ay gaareen yani waa marka loo fiiriyo kuwa kale xitaa mustaqbal ahaan iyo maalgashi ahaan bas aan ka hadlayn already OpenAI shirkadda la bilaabo BMW ka mid tahay ay mushaaraka la sameeyeen oo la shirkoobeen taasoo ka micnaa wixii hore ka soo hadlaynay dhan tilaabo ay ka horeeyeen wax badan ay ka horeeyaan lana soco oo waxay ka micno tahay in maalgashigan ay heleen ay soo saari karaan robotyo kuwii hore ka qoto dheer ka awood badan ka dynamicsan oo laga yaabo muuqaaladan xin uga hadalno ama inta nool nahayba ay qaab kala duwan naga soo baxaan robotkan xiga waxa loo yaqaanaa Apollo oo soo saartay shirkadda loo yaqaan Aptronic tabaan dalka Mareykanka ah robotkan dhererkiisu ilaa 172 cm ayuu gaarayaa miisaankiisu culayskiisuna 72 kiilo ayuu gaarayaa ilaa 25 kiilo culays dhanna uu qaadi karaa waxa lagu farxaa inuu 4 saac oo kaliya baterigiisu shaqeynayo waxaan u leeyahay wax lagu farxaa inay tahay sababtoo robotyadan bari ka maalin haddii caqabad kale nagu noqdaan waxa wali wax lagu farxaa noqon doona in ay leeyihiin cumri gaaban يعني aadanaha waqtigiisu waa kala duwan hadda ummad Maxamed nahay 63 baan ku bayta cumrigan oo xilliga nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku dhintay saas la mida kan
asaguna robodyada dhammaantood cumri go'an bay leeyihiin oo inta baterigooda shaqaynayo kan marka loo fiiriyo kuwii hore asaga minimum 4 saac ku dhawaad uu gaaray wixii 4 saac loo gaaro wuxuu u baahanayaa tamar dheeraad in la siiyo robotka markii tacriifin waxay ku yeereen hal shay oo leh endless opportunities yani fursado aan dhammaan lahayn waxaan ka hadlaynaa hadday timid inuu lahaa 11 shakli inuu u shaqayn karo waxaan ka hadlaynaa inuu horay iyo gadaal u socon karo waxaan ka hadlaynaa inuu wax qaadi karo dhigi karo bas yani waa si uga kooban baa loo robot gareeyay kan laakiin waxay sheegayaan ilaa milyan qaab oo kala duwan inuu u shaqayn karo yani annaga taa waxay ka micno tahay annaga bilaayin qaab oo kala duwan u shaqayn karno annaga wadadeena soo hayaabay u micno tahay oo 1 milyan iyo ka badan qaabab kala duwan ay u qaadi karaa oo kala duwan u samayn karaa taasoo ka micnaa dhammaan wixii hore u soo hadalnay laftigiisu kasii qoto dheer yahay oo kasii awood badan yahay waliba wuxuu kaga duwan yahay haddii muuqaalkiisa fiirsan arki doontaan dhammaan robotyada kala soo arkeen kulligood waa bir soconaysa oo lambar laga damiyay la baskaliyo laakiin kan kulligood wuxuu kaga duwan yahay in uu leeyahay shaashadaha loo yaqaan LED taasoo cadeynaysa waxa xaaladdu marka ku sugay in arki kartid ama xagga laga siin karo orders iyo waxyaalo kala duwan iyo buttonskiisa xaggaas si fudud looga maamuli karo dhanka kale shirkadda caanka iyaduna Mercedes-Benz loo yaqaan gawaari soo saarto dalka Germany ama Jarmalka ayaa sidoo kalena heshiis la saxeexday shirkaddan oo inay robotkan Apollo ay adeegsadaan kuwaas oo dhaheen waxaan u adeegsan doonaa khadka ama line-ka production line-ka gawaar lagu soo saaro inuu alaabaha spare parts-ka biraha daaqadaha muraayadaha kala duwan inuu keeno oo sii qaado soo qaado ayaan u adeegsan doonaa haddana dhawaanna waxay qorsheynayaan in robotkan loo adeegsado si ku meel gaara oo tijaaba in loo sii sameeyo laakiin dhawaan hadduu tijaabada ka baxo waa suurtagal inaan ku aragno dhammaan haddaan shirkadaha booqana xarumahooda inuu naga soo baxo robot markaas shaaxa kuu keenaya markaas dhahaya taayirkii gaariga laga bedelay waa kan iyo waxyaalo kaloo la mid ah soo cajiib maaha tal waxaa kaloo socda robotkan waxaa loo yaqaanaa digit waxaa soo saartay shirkadda loo yaqaana agility ee dalka maraykanka robotkan shirkadda samaysay shirkad bilaa sanadda 2016 jirtay weeyaan shirkad cusub maaha shirkadan ka soo dhammaan qaarkood way cusub yihiin waxaa cajiibka waxaa ka mid ah robotkan hadda idin muuqda inuusan ahayn kii ugu horreeya la soo saaray ee already shirkadda Amazon haddaa maqasheen ee online-ka ka shaqayso oo kaargoga intaasoo milyan kala gedisa wuxuu ka shaqeeyaa bakhaaradeeda si dhayl uga shaqeeya yani already waa robot suuqa ku jira oo shaqaynaya laakiin markaan qaab ka duwan ay u soo saareen oo ah inay sameeyeen kuwii hore waxaan kuwa mashiina qaadi kara culays qaadi kara qaab kala duwan laakiin kan inuu noqdo mid bini aadamku u soogaan waxaan ka hadlaynaa robotyada culayska iyo wixii qaadiya marka laga soo tago oo dee noocyada kala lahaa wax bini aadamka u soo eg oo haddana garaadka aadanaha wax imitation ku sameyn ama dhaadhaajin kara wax ka agdhow wax leh marka kan digit oo shirkaddan agility ay leedahay sidoo kale already marar badan waxaa laga shaqeynaya inuu ka shaqeeyo warshadaha uu ka shaqeeyo halka uu ugu talagaleen dhammaantood qof kasta oo raba inuu warshad ka shaqeeyo oo alaaba loo qaado culays maxaa caadiyan aan dalbanaa waa bini aadam shaqaale kala duwan dalbad waxa ku leeyahay toqan iska dhaaf waxaanu ka shaqeynaynaa inaad heshaan robotyada idin shaqeeya wali waxa la cajiibka si waxa weeyaan farihiisa marka loo fiiriyo robotyada kala dhammaan wuxuu u design garaysan yahay inuu cargo soo qaado cargo dhigo waxyaalaha karaatinta kala nooc yararka oo lagu talagalay e-commerce-ga ama alaabaha shopping-ka laga soo gato oo online laga soo gato u design garaysan yani asaga dhan waxa loo diyaariyay inuu khadmeeyo oo karton soo qaado dhigo tusaale kale bakhaarka xitaa waxa imaan kara gaar Amazon ka soo ama gaari karaatin kala duwan wada waa la amray kaliya kulliga asaga faarujinaya ama kulligood asaga saaraya soo cajiib ma sidoo kale shirkadda Nvidia oo ah tan hadda dunida ugu qiimaha badan oo soo saartay chipskan hadda aan ka hadlayno oo shirkadaha AI-ga dhammaan adeegsanayaan sidoo kale waxay qorsheynaysaa in ay waxyaalaha delivery-ga alaabta markay qaas meel geeyso inuu adeegsan ka shaqeynaya sidoo kale shirkadda Ford oo gawaar soo saarta ayaguna sidoo kale talabaad soo dhigto dheen waxa u baahan robotkan inuu noo shaqeeyo shirkaddan oo markii hore laga aasaasay gobolka Oregon waliba jaamacadda State University yani Oregon State University ama jaamacadda dawladda Oregon ay markii horeba ka soo dhashay ayaa sanadkan dabiiqiis waxa qorsheynaya inay warshad kala furaan oo ay soo saaraan sanadkii ilaa 10,000 oo robot inay soo saaraan shaqaaleysiiyaan 500 oo qof robot maya 500 qof ay shaqaaleysiinayaan laakiin waxa cajiibka waxa weeyaan inay soo saaraan beerman robotyo bini aadamka shaqada ka saara ayaguna waxay shaqaaleysiin bini aadam marka taa waxay ka tahay xogaa dhilnimada ah shirkaddan baanu nahay dhammaan robotyo noo shaqeeya in meesha ka saaraan dhahan wali robotkii aadana way isla shaqeyn karaan ee hamurgoonida aan soo gaarnay shirkadda loo yaqaan Boston Dynamics robotkeeda caanka ah Atlas waxa laga yaabaa haddii hore u arag si meesha kaga muuqata in aad aragteen ayagoo shirkaddan soo saartay dhammaan robotyada kala caanka ah oo dhammaantood
ay dhaantaynayaan baan dhihi karnaa. Haddaan dhaanta xitaa Soomaaliya saarno ma laha dhaanta Soomaaliya kusoo bixi karto lahayn. robotkan Atlas oo ay soo saartay shirkaddan robotyada badan ay soo saareen mid ka mid uu yahay ayaa asna sanadan 2024 performance-giisa ku naqan performance-ka si sareeya gaaray. Hore waxaan ogaanay asagoo intuu la shaqeeyay qofkii farsamayaqaanka culayska soo qaadi kara tinta tuuri wax badan sameeynaya. Marka heer ka sii dambeeyo ay sii gaarayaan. Inkastoo ay muujiyeen dhahaan Atlas waana soo jirnay. Yani Boston Dynamics inuu ku dhawaaqdo in robotkaas caanka ay joojiyaan su'aalo badan ay ka keenaan oo la oranayo waan joojinay ay leeyihiin, laakiin ka waran haddii uu robotkan bari naga soo baxo askari ah isagoo dagaalada ku jira daaran ka waran. Waa shirkaddan sanado badan bay mashruucan soo wadeen. Yani robot saas dhan caan u ah oo saas dhan u kala duwan oo inaba aan caadi ahayn in maanta la dhaho khadka laga saaraya wax su'aal dhalin kara weeyaan. Balan aragno robotka maanta isagoo dhaantiinan gaaray aweyn bari kamal talo soo bixi doona. taasna waxay ahayd Boston Dynamics robotyada ugu caanka mid ka mid ah waan is oranayna wuxuu ka mid yahay kuwa ugu horumarsan dhammaan waxaan soo tirinay marka laga soo tago. Robotka xiga waxaan aadaynaa dalkaas iyo China ayaan aadaynaa. Shirkaddan loo yaqaan Unitree robotkeeda H1 dhammaan waxaan soo tirinay dhan wuxuu leeyahay waxba kama jiraan weeyaan. Waayo tusaale kale robotadan soo sheegnay dhammaan waxay ku shaqeynayaan hydraulic ku shaqeynayaan gacmahooda lugahooda kulligood waa hydraulic yani waa mechanic gawaarida ka agdhow yihiin. Laakiin shirkaddan waxay soo saartay mid dhammaan koronto ku shaqeynaya yani kelita battery u baahan oo awoodiisa iyo flexibility-giisu ay tahay mid wixii hore soo hadalnay dhan wax badan ka fudud. Robotkan ayaa gaaraya 180 cm aad ayuu dheer yahay. Dherer cabirkiisuna ama miisaankiisuna uu gaaraya 47 kg. Sekinkiina socon kara 3.3 mitir. Ma saacadii maaya sekinkii 3 mitir soconaya. That means aad u dheereeya. Haddii saacadii socon karo sekinkii socon karo 3.3 saacadii ma ku socon kara waa 60 sekin oo lagu dhiftay 3 mitir iyo 30 senti lagu dhiftay ku socon kara. Waa tiro aan yareyn dhabtay garanaysaa. taasna waxay ku tusaysaa khafiifkiisa iyo fudaydkiisa say tahay. Robotkan robotyada ordi kara ee bini'aadamku u eg kooda ugu dheereeya ayaanu oran karnaa maadaama khafiif uu yahay xawaarihiisa u dheereeya. waliba taakliku ma ahan record buba ka haystaa dhankaas. Robotyada dunida ugu dheereeya ee bini'aadamku u eg kooda ugu dheereynta badan ayuu koow kaga jira kaalinta koowaad. sida Boston Dynamics ayay sidoo kale ayaguna waxay leeyihiin robot aygo u eg oo kala aygu waxay leedahay Boston Dynamics oo jaalla oo socda oo marmartii talaa lagu dhufto socon karo. shirkaddan saas la mid ah ayay ka shaqeynaysaa. waliba waxay leeyihiin dhawaan waxay rabaan inay soo daayaan suuq soo daayaan oo aniga adigu baan gadan karno. waliba ay ku leeyihiin alaabadaas suuqa soo gadatay oo kale oo u dirsan kartaa waan ku keeni karaa. talo wixii ka soo kordhan asna arki doonaa. waxaan akhiran soo gaarnay Optimus dalka Mareykanka. shirkaddan loo yaqaan Tesla sa ogtihiin waxay ka mid tahay shirkadaha ugu caansan dunida ee soo saara gawaarida korontada oo aasaasay Elon Musk. shirkaddan oo aan ku naqaano inay leedahay gawaari iskood isku wadaya isleexin kara isfududeyn kara meeshada kugu imaan kara. waliba dhacdooyinka cajiibka waxaa ka mid ah in hadda ka hor nin intuu neeftu qabsoontay oo xaalad caafimaad adag la soo wajahday oo hal mar gaariga intuu la hadlay uu yiri isbitaalka igu dhow ii kaxee. sidaasna gaariga Tesla intuu soo kaxay ninka isbitaalka qaybta emergency ama gargaarka degdega oo keenay. haddaba shirkaddii aqoonta intaas lahayd koronto hadday noqoto bateriya gawaari bateri ku shaqeyn hadday noqoto oo koronto ku shaqeyn gaas iyo petrol wax aan lahayn sidoo kale garaadka macmalka qaybsi kala duwan ku shaqeeyay waxay dhan khibraddanadii ku aadanayd gawaarida ayaan hadda wax u wareejinaynaa robot u wareejinaynaa taas oo siinaysa fursad tartan oo kaga hormari kan dhammaan wixii aan soo tirinay oo dhan. way khibrad ayaa lagu dhisaya kan. robotkan ayaa dherer ahaan gaaray 180 cm culayskiisuna u dhan yahay 47 kg meelahaas laakiinse wax qaadistiisu ay gaarayso ilaa 68 kg yani dhammaan wixii aan soo tirinay oo dhan meel iska fariisayo dhahay. waliba asaga dhererkiisu culayskiisu 47 kg laakiin wuxuu qaadi karaa culayska asagu leeyahay culays ka badan buu qaadi karaa 60 iyo dheeraad kg inuu qaadi karo. halka saacadiina uu socon karo 8 km yani dhammaan kuwii hore marka loo fiiriyo qaar badan oo kamid ah uu socod ahaan oo waqti ka dheer qaadan karo. halka baterigiisu uu gaarayo 4680 battery oo ah kan gaariga Tesla ku jira mid u dhigma asna ku jira taasoo ka micno tahay waqti badan inuu asna la tigiso oo shaqeyn karo.
halka dhanka kale aan ka soo hadalnay robotyo gacmahooda asaga gacmaha waxaa loo sameeyay dhaheen aad xasaas u ah ilaa heer uu ukun jebin karo ama ukun u qaadi karo yani wax bir ka samaysan in ukun intay qaado ay dhib gaarsi meel dhigto way adagtaa laakiinse kan Optimus wuxuu awood u leeyahay inuu ukun intuu soo qaado asoo dhibaato gaarsiin oo dhiga karo taasoo ka micnaa gacmihiisa faraha loo sameeyay aad ay xasaas u yihiin oo hadhowtu ka maalin waxay loo adeegsanayo kala duwan asoo dhib soo gaarsiin oo sida ugu fiican ugu dhaqsaha badan uga shaqayn karaa haddaba gabagabadii gunaanadka waxaan ka soo hadalnay dhowr robot oo kala duwan oo aan dheeri kulligood aadanaha ayaa loo soo ekaysiiyey garaadkii macmalka oo shaashadaha iyo taleefanada ku arki jirnay mid ka duwan kuwa ka duwan inay yihiin oo dhammaantood dareenkii shaashadaha ku jira dhammaantood lagu shubay man ogin kuwii hadda qaarkood la joojiyey kuwa noocyadooda kala duwan kuwa waxaan nidhi ukunta iyo guriga kaa saacidiyeen kuwa alaabta culus bay kaa saacidiyeen kuwa qaybo kala duwan ay kala shaqaynayaan laakiinse waxaa laga yaabaa qaarkood in biri ayagan dagaal ku jira naga soo horbaxaan waxaa suurtagal qaarkood in aan aragno ayagoo goobta shaqada nagala shaqaynayo oo aan shaqo wadaagnahay qaarkood waxaa laga yaabaaba dhakhtarkaaga xigay ee wadnaha kaa qali doono inuu noqdo robot ma ogid waxay noqon karto ilaa heer wuxuu xal ku socdaa la yiraahdo dadka isguursan lahaa xitaa partnerska la raadinayay oo lamaane la raadinayay xitaa badalkooda waxa soo gali doona robotyo waxay noqotaba kolley waxa weeyaan aadanu waxay gacanta ku falaan ayaa mar walbana dhibaato soo gaaraysa iyo faa'iido soo gaaraysa ay tahay laakiin anaga ayay tahay aadan ahaan ama bini aadam ahaan inaan mas'uuliyad iska saarno dunida nagu hareeraysan haddaba jaalayaal sanadkan robotyada ugu caansanaa oo la is oranayo sawaxan ama jabaq la yaab leh ay soo kordhiyeen kuwaas ay ahaayeen inta ku kulmayna barnaamijkan barnaamij la mid ah san maqal dambe xiiso badan assalaamu calaykum